dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa maanta sameeyay isku soo baxay ku doonayaan inay ku muujiyaan rabitaankooda mustaqbalka iyo doorka ay ku yeelanayaan dhalinyarada doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka. Dhalinyarada ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalka iyo dadka Soomaaliyeed loo soo xiro mas'uuliyiin matalaad dhab ah qaadi kara kana turjumi kara rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha dhalinyarada degmada Xamar Jajab Maxamed Aadan Roble ayaa ka codsaday odayaasha dhaqanka inay door fiican siiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed. odayaasha dhaqanka ee doorka ku laha inay soo xulaan ergooyinka in ay soo xulaan ergo nadiif ah oo aan wax laaluushi wax lacag lagu soo qaadan si ergadaas ay sabab ugu noqoto inuu meeshaas ka soo baxo xildhibaan nadiif ah oo dalka iyo dadka u istaagi kara oo ka soo baxo xildhibaankaas nadiifkana u keeno musharax dalka iyo dadka u danay kara ee ma doonayno wax dantooda gaarka kaliya ku mashquulayo oo danta guudna ka mashquulayo waxaan codsanaynaa in dad hufan oo nadiif ah oo dalka iyo dadka u daacada oo laaluush laga qaadan ayaguna laaluush aan bixin in la soo xulo insha Allah intaas ayaan rajaynayaa. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan oo gabagabada la hadlay dhalinyarada isku soo baxday ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga fikiro mustaqbalka dalka. haddii aanan dhalinyarada Soomaaliyeed in la helo dad u damqahayo dalka iyo dadka danta guudna ka shaqeeyahayo taas annagoo runaantii ka duuleeno ayaa maanta dhalinyarada isku soo baxday ma doonayno dib in loo laabto dalka waxaan rabnaa inuu hore u socdo maalmihii ugu dambeeyay waxa horumarro badan ayaa laga gaaray dalkeena 4 sanaad ugu dambeysay maanta ujeedadana waxay tahay annagoona cidna ku taageereen cidna ku mucaaradeen in dhalinyarada Soomaaliyeed doorkooda ay ka hadlaan oo ku aadan maanta dalka waxay u baahan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed in lagu aamino dhalinyarada Soomaaliyeed inay hogaamiyaan hogaamintaas oo aan rabno in dhalinyarada maanta aanan lacag lagu dhibaateenin dad lacag ku soo baxa odayaal leh inaan iska leexino dhalinyarada wax qabadka leh oo ujeedkooda ya dalkan iyo dadkan inay hormariyaan in garab lagu siiyo sida dalka iyo dadka ku hormari lahaayeen intaan oo dhalinyaro ah oo maanta halkan ku sugan waa dad dhalinyaro ah aragtidooda iyo fikirkooda ku dhawaaqay taas oo ku aadaneed in dalka iyo dadka ay u baahan yihiin annaga haddii aan dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan soo aragnay burbur waxaan soo aragnay dhibaato fara badan laakiin maanta waxaan u taaganahay dalka iyo dadka inaan badbaadino. Farxaan Salaaji Macaale warbaahinta qaranka Muqdisho.